waxaan farxadeena mar kale ku soo noqdo magaalada Dhuusamareeb sidoo kale waxaa farxadii ah in saraakiishii oo la isku dhafay maanta ay hal mid ay yihiin ay hal meel u wada jeedaan farxada ay tahay waan ku faraxsanahay intaas kadib ciidamadaas si gooni u daarmaya waxaan rabaa qabiilka in qarannimo lagu bedelo sidoo kale waxaan rabaa tafraaruq midnimo in lagu bedelo iyo waxaan rabaa danta gaarka in danta guud laga hormariyo inta sadaan isku raacno guul balaarana gaari doona waxaan sidoo kale ku faraxsanahay ciidamada qalabka sibaqeeyaha kala duwan in afar degmo maahane galmudug inta kale gacantooda ku jirto insha Allah waxaan rajaynayaa in mar dhow afartaas degmada gacanta aan ku wada dhigno anaga wada socono anaga hareerihiina soconayna ma idinka daw marmeeno meel kan ku harmeeno waa idin daw soconayna insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo diyaaraan nahay inaan nafteen u qadino dalkeena hooyo waxaa ogaataa halka xuriyada wadanka waxa soo gaarsay rag dhalinyaro ah oo idinka naga yara 13 su'aal ka soo bilaabatay xuriyada haddaan haysanay ay ku yimaadeen marka duu qof naftiisa u horin horumar la gaari maayo marka inteena waxaa la rabaa inaan nafteen u qadino qaranka Soomaaliyeed si jiilka naga dambeeyay nolol fiican ugu roon cadowna lagu xoreey intaas kadib waxaan maanta yimid dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadeena wafdi ka socda dawladda Qatar oo hogaaminayo ra'iisul ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale wafdigu waxa la socday wasiiro badan waxaana kamid ahaa wasiirka dekedaha isgaarsiinta ee dalka Qatar iyo wasiiradeena Maryam Qaasim maanta waxay ku dhawaaqeen in dekeda Hobyo sidoo dhaqso badan loo bilaabi doono haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waa u jeedaa dawladda Soomaaliyeed si gaar ayay ugu heelasay deegaankan ama maamul goboleedkan Galmudug marka Galmudug waxa la rabaa in dadkan gacmaha is qabsataan dawladdan la shaqeeyo cadowgan lagu xoreeyo haduu Ilaahay yiraahdo midna ogaada cadowga haduu arkin horumar laga gaaray wadanka Soomaaliyeed meel kasta tahay wuxuu isku dayay inay weerar ku soo qaadaan dekadaas waxa dhici karta inay carqalayaan marka waxa la rabaa anaga inaan difaaciida diyaar u noqono mashaariicda ku horgalay mar hadda dekada heshaan haduu Ilaahay yiraahdo wax badan laga heli doona waxaan sidoo kale ogaataan Galmudug waa meelaha shidaalka Soomaaliyeed ugu badan ku jiro waxa soo dhan waxa la rabaa in anaga nool carruurteena u soo saarno haduu Ilaahay yiraahdo oo nas garabsanayna waana mahadsantihiin si gaar waxa ugu mahadcelinaya guddiga jubisiinta oo waqtigooda badan inta ku qaatay waxaan leenahay anaga ka amni ahaan waxaan diyaar u nahay in amniga aan sugno saraakiisha markale waxaan u daarmayaa qofka sarkaalka ah waxa ugu horeeya marka hore uu badbaadinayo waa nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed inta noogu muhiimsan marka diyaar u nahay dadkii yimaado shirka inaan difaacno inaan nabad ee ku shirkooda ku dhameystaan diyaar u nahay waan mahadsantiin salaamu calaykum.